doontaa. Intaan casharka bilaaban marka maanta waxaan leenahay what you should already know. waxyaabaha muhiimka ee PHP markaad baranayso ay maxaan ku rahdaa muhiim tahay inaad wax ka taqaano ayaan wax ka arkaynaa. waxaa ka mid ah HTML, CSS, JavaScript, English, basic mathematics. hadda HTML iyo CSS already waan soo duubnay, waa diyaar. JavaScript weli mayna duubin, laakiin insha Allah tacaala wuxuu noqon doonaa kooraska ku xiga kooraskan. laakiin waxaa laga yaabaa dhowr bilood kadib haddaad daawatay casharkan, ama sanad kadib, ama maxaan ku rahdaay 2 sano kadib, ama waqti kale inuu maxaan ku rahdaa markaa uu diyaar yahay ayaa dhici karta. laakiin xilliga aan bilaabana kooraskan weli maana bilaabin. kooraska ku xiga ayuu noqon doonaa. marka waa muhiim basic understanding inaad ka haysato. Englishka ka mid ah. Englishka waxaan ka laakiin muhiim ma, laakiin si kale haddii loo eegana waa muhiim runtii. waayo waxaynu ka hadlanaa hadda Soomaali baan ku turjumanaa, laakiin wixii English bay ku qoran yihiin, ama PHP ahaado ama ma garanaysaa koorsooyinka maxaan ku rahdaay computer science oo dhan. marka wixii English buu ku qoran yahay, waxaan qorana waa English, waxaan sharaxna waa English. marka English hadda at least xitaa beginner ba hadda wax ka taqaano waa muhiim runtii. aad bay ku caawinaysaa inaad si sahlan u fahanto PHP iyo maadooyinka kaleba. basic mathematics runtii iyana aad bay muhiim u tahay guud ahaan maxaan ku rahdaay computer science-ka. waana koorsooyinka ugu badan runtii computer science-ka maxaan ku rahdaay lagu barto. laakiin PHP markaan ka hadlan waxaa muhiim ah un basic mathematics-ka, mathalan addition, subtraction, division, multiplication, sida maaragtay ma garanaysaa kuwa basic gaayo maxaan ku rahdaay iskuulka hoose in ku qaadano inaad taqaano waa arrin aad u muhiima, iyo wixii kasii sare waa kasii fiican tahay. aan guda galno marka casharkeena. PHP waxay u taagan tahay marka hore hypertext preprocessor. PHP is one of the most popular scripting language on the web. waa mid ka mid ah ama kuwa ugu caansan runtii scripting language-ka la yiraahdo. HTML markaan ka hadlayno waxaan niri waa markup language, halkan waxaan leenahay scripting language. so waxaan u baahnaa marka inaan fahanno waa maxay scripting language. okay, saan scripting language u fahanno waxaan u baahnaa inaan fahanno ereygan scripting context-ga markaan ka hadlano programming-ka ama maxaan ku rahdaa web design-ka. Script is a small bit of code that enables web process to do something or to provide dynamic results. Simply waa code ama instruction something kaasoo u sahlaya web browser-ka inuu noqdo dynamic instead uu ahaan lahaa static. macnaha static waxa weeyaan wax markaad click siiso ama ma garanaysaa aan dhaqdhaqaaqayn, oo wixii shaqadii laga qabanayana la rabo manual in loo geliyo. macnaha manual rabo in loo geliyo ama shaqadii loogu qabto. laakiin wax markaad userkii click siiyo ama maxaan ku rahdaay uu amar siiyo, amarkii qaadanaya isbedelaya, result ku siinaya, kaasa xalida dynamic. marka waa korka kuu sahlaya inuu maxaan ku rahdaa web page-kii wixii SMS userka sameynay uu noqdo dynamic. Scripting languages stress flexibility, rapid development and dynamic checking. macnaha waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka hadlaan scripting language ka mid ah waa in wixii ay yihiin flexibility, result wixii lagu sameeyo maxaan ku rahdaay scripting language. sidoo kale rapid development, si degdeg wixii loo maxaan ku rahdaay loo hormariyo oo maxaan ku rahdaay loo sameeyo. iyo dynamic, inuu wixii yahay wax dynamic ah oo shaqaynaya oo amarkii la siiya qaadanaya waa inuu yahay. مثلا haddaad samaysto website static uu qurux badan yahay, menugiisii maxaan ku rahdaay headeradii, sidebarradii, footerkii, everything waan sameeyey, waan qurxiyey, maxaan ku rahdaa wax kasta waan ku shubay. laakiin userka hadduu soo gaa click hadduu siiyo amar waxaan samee ama uu halkan click siiyo waa static, wax dhaqaaqaya male. waxaa micnaa marka ma sameynayso marka. okay, marka
waxaan sidoo kale jirtaa u naqaana PHP waxa la yidhahdo server-side language. PHP also known as a server-side language. Server-side language maxaa loo yiri because PHP code are executed on the server. PHP-ga ama koodharka PHP-ga waxaa lagu execute gareeyaa, lagu sameeyaa, ma lagu maxaan ku rahdaayay habeeyaa, maxaan ku rahdaayay serverka. Computerkaaga maxaan ku rahdaa uma baahna inuu maxaan ku rahdaayay uu execute gareeyo ama implement gareeyo koodharkii PHP-ga. That's why loo yiraahdo ama mararka qaarkood loo yiraahdo waa server-side language. Waa dhinaca maxaan ku rahdaayay serverka. Kabacdi markii lagu execute gareeyo serverka, then the result is returned to the browser as plain HTML. Kabacdi koodhka horta waxa lagu execute gareynayaa ama lagu sameynayaa maxaan ku rahdaayay serverka. Serverka markii koodhka lagu execute gareeyo kabacdina resultiga waxa loo soo celinayaa wuxuu ka soo baxaya web browserka iyadoo la isticmaalayo HTML plain macnaha. waan gartay qodobka xiga arrinta ugu muhiimsan arrinta inaan fahanno waa what PHP can do. PHP muxuu samayn karaa, muxuu qaban karaa. PHP can generate dynamic page content. waxyaaba ugu muhiimsan wuxuu abuuri karaa ama lagu samayn karaa iyadoo PHP la isticmaalayo dynamic page content. Page content waxa weeye waa waxa ku jira maxaan ku rahdaayay muhiimadda ku jirta marka website-ka ama web page-ka. waxa kaloo muhiimka waxay tahay PHP can create, open, read, write and close files on the server. waxaad macnaha aad ku sahlayaa awood u leedahay markaad PHP isticmaalayso inaad file create garayso, aad samayso abuurto, inaad file aad maxaan ku rahdaa aan soo furto, inaad soo akhriyo, inaad wax ku qorto, in maxaan ku rahdaay uu xiro maxaan ku rahdaay faylasha serverka intaba wuu samayn karaa. sidoo kale PHP can collect form data. مثلا website-kii intuu user-kii soo galay uu form buuxiyey formka waxa ka soo qaadaya data ka soo qaadaya database-ka keenaya waa PHP. waa awoodaas uu leeyahay. PHP sidoo kale can send and receive cookies. cookies waxa weeyaan مثلا waa events ka sameeyay مثلا markastoo aad website gasho, meel kastoo aad click siiso, meel kastoo aad gasho URL-ka ama maxaan ku rahdaa website-ka address-kiisa aad booqanayso ayaa waxa lagu kaydinayaa meelo markaa khaasa maxaan ku rahdaa website directory oo kale folder qaar lagu kaydinayaa. marka cookies-kaas la dhahaa meel kastoo markaad click siiso website kastoo aad gasho aad booqato events-ka ayaa maxaan ku rahdaa meel khaasa lagu kaydinayaa. marka wuxuu diri karaa ama heli karaa cookies-kaas. sidoo kale PHP can add, delete, modify data in your database. sidoo kale waxaad ma garanaysaa uu kuu sahlaya adoo PHP isticmaalaya inuu wax ku darto, wax ka delete garayso, wax ka bedesho datada ku jirta database-kaaga. PHP sidoo kale can restrict users to access some pages on your website. For example, website-ka qaybo kamid ah rabtaa users-kaagii inaysan gelin ama isticmaalin, waad ka xanimi kartaa adoo isticmaali karaa ama isticmaalaya ama awoodda uu kuu siinayo PHP. ugu dambeyntii waxaan leenahay PHP can encrypt data. wuxuu encrypt garayn karaa data. encrypt data waxa weeyaan computer science-ka dad wax ka baratay waad ku aragtay koorsooyinka marka laga hadlayo data communication-ka. encrypt data waxa weeyaan data kasto marka la diro oo from one device to another device oo meel laga diro meel kale loo diro waxa la isticmaalaya encryption. encryption waxa weeyaan datada waxa loo bedelayaa form iyadoo loo jeedo macnaha security ahaan loo isticmaalo, macnaha muhiimadeedu ay tahay ayaa waxa loo bedelayaa form la yiraahdo ciphertext. kabacdina formkaas marka qofkii ilaa qofka ay datada u socoto mooga qof kale ma akhrin karo. waa form ay adag tahay macnaha dad baa waxay dhici karta datadiiyo macnaha aan device-ka ka dirtay mooga meeshka ama hawada maraysa ama ma garanaysaa
in la haagareeyo oo datadii la bedelo la modify gareeyo wax lagu sameeyo ama la qaataba datadii oo dhan marka waxaa la isticmaala waxa leedahay data encryption oo maxaan ku rahdaa datadii iyo formkii baa la bedelayaa mathalan datadan oo kale hadda rabaa inaan diro filekan oo kale filekan waad akhrin kartaa hadda laakiin encryption marka lagu sameeyo kulli waxaa laga dhigayaa calaamado iyo xisaabaad waxaadaan akhrin karin oo macnaha micno samaynayn luuqad kasta oo aad u geysa aan micno ku samaynayn marka encryption hadhow markii datadii ay gaarto maxaan ku rahdaa receiverka ay gaadho qofkii datadana waa la bedelay datadii sideeda waa lagu soo celinaya marka saas waxaa la dhahaa data encryption wuuna kuu sahlayaa mahadsanid maxaan ku rahdaa kaas wuxuu ahaa marka introduction aan ka horeysiinay saan u fahano maxaan ku rahdaa course-ka aan bilownay aan rabnaa inaan bilowno oo ah PHP